laakiin hal qodob oo fartiin ah aan waxaan rabaa inaan u diro gudoomiyaha baarlamaanka. gudoomiyaha baarlamaanku waa inuu degdeg ku soo galo xarunta Hirshabeelle. deg shaqada socota iyo barnaamijka socda xil weyn ka saaran yahay ma dhayelsa karna inuu ka maqnaado waa inuu degdeg ku yimaada oo ummadan u shir gudoomiyaha waxay rabto insha Allah taala waana lagu qasbayaa inuu u shir gudoomiyaha ummadan waxay rabto hadii Ilaahay yiraahdo. aad iyo aad u mahadsantihiin wasiiradaasna tixgelinteeda gaarka ay insha Allah taala ay noo yeelo doonaan. waxaan rajaynaynaa insha Allah madaxweynuhu hadduu hogaamintiisii gabay inuu cidna ku eedin bulshada Hirshabeelle inagu eedin kuwa dibadda naga soo waala nala soo hadlaana inagu eedin qofka xilkiisa gudu waayna saana waa laga qaadaa hadduu yahay gudoomiye iyo hadduu yahay madaxweyne sideedaba waa laga qaaday qofka xilka gudu waay. waxa ka dhiman waxay tahay inaan u mahad celino dadkii gartay wixii ay u dhaarteen oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda ay ugu dhaarteen mar haddii ay ka suuragali waayeen hogaankii ugu sareeyay mataqaanaa dawlad goboleedka Hirshabeelle in aysan ummadooda been u sheegin iska casilay taariikhda